haddii ay waxyaabo kale raacaanna dee xaaraannimadu ishkaalba geli maayo sida heesahan imika ee uu la socdo ikhtilaadku rag iyo dumar inta meel la isugu keeno isdhex gelayo dhinacyadiisa saaraya iyo qaawani dumar qaawan oo rag markaa la heesaya oo ajanabi ka ah waxaasoo kale dee qof culimo ah oo diinta ilaahay garanaya oo ilaahay ka baqaya oo dadka khayrka la jecel sharkana la neceb intuu meel soo fadhiista ma odhan karo waxaasa xalaala shaygu inuu xun yahayna waxaa calaamad u ah ama calaamadihiisa ka mid a inuu xumaan dhalo xumaantu xumaan bay dhasha wanaagguna wanaag buu dhalaa heesuu dadka ma iimaan bay u ziyaadinayna alkacabsi inaanu banaanayn buu halkan ku sheegaya wuxuu ihi falaa tasixu ansixi maysa alijaaratu kiraysiga qof la kiraysto ee loo kiraysto calaa zamrin muusiga iyo waxyaabaha heesaha loo garaaco inuu cid u tumo oo u garaaco waayo waxaa shardi ahaa manfacadu inay noqoto manfaca mubaaxa qofkaana manfacadiisu waa wax xaaraana weeye madaahibta fiqigiina waxay qabaan heesaha wata aalaadka iyo qalabka loo tumayo inay xaaraan yihiin hadday shaaficiye yihiin iyo hadday madaahibta kale yihiinba haddii ereyadooda ay xun yihiinna dee hadal ahaan baabay xaaraan u yihiin oo cay ay ku jirto dad la caayayo ama dumar la sifaynayo xubnahoodii iyo mafaatintoodii haddii ay waxyaabo kale raacaanna dee xaaraannimadu ishkaalba geli maayo sida heesahan imika ee uu la socdo ikhtilaadku rag iyo dumar inta meel la isugu keeno isdhex gelayo dhinacyadiisa saaraya iyo qaawani dumar qaawan oo tabarujka ilaahay xaaraantimeeye samaynaya la uhi walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati اluula oo rag markaa la heesaya oo ajanabi ka ah gacmaha isqabqabsanayaan oo dhinacyada ay saarayaanoo gabadhii ragga hortooda ay isjejebinayso oo ay luxayso xubnaheeda qaarkood oo raggii ay fitnaynayso oo ay noqonayso maaila mumiila mid xaqii ka leexsan dadkana ka leexinaysa waxaasoo kale dee qof culimo ah oo diinta ilaahay garanaya oo ilaahay ka baqaya oo dadka khayrka la jecel sharkana la neceb intuu meel soo fadhiista ma odhan karo waxaasa xalaala xataa culimada ka hadla ee dee beryaha hore ka hadlay adilladooda jiraan la soo qaato si ibnu xasam oo kale iyo dee waxaa maaha wax munkaraad wax shareecadu diiday oo iska cad uu la socdo maaha wuxuu ka hadlaya waa mujarad dee ereyo la tiriyo ama waxaa loo garaacmay aan loo garaacinayo wixii lamid ogi laakiin kuwa waxaan ay la socdaan in muranba la geliyo maaha xaaraannimadooda wixii ilaahay xaaraantimeeyo o dhan baa ku meersanba walihaada shayga midhihiisaa lagu gartaayo dee midhahoodu wax wanaagsan ma oo sidii horeba loo yidhi dee saxaabada qaar ba yidhaahdeen waa beriidu zina dad wareysta imika dadka qaarkooda waxaa ku dhex jiri jiro ka toobad keenay waxay kuu sheegayaan heesaha noocan aynu ka sheekayna qaabka ay u dhacaan sida ay u sababaan xumaanta shaygu inuu xun yahayna waxaa calaamad u ah ama calaamadihiisa ka mid a inuu xumaan dhalo xumaantu xumaan bay dhasha wanaagguna wanaag buu dhalaa heesuu dadka ma iimaan bay u ziyaadinayna alkacabsi may iimaankooday daciifinayaan oo cibaadadooday daciifinayaan marka in loo kiray in qofku markuu aroosanayo tusaalaan uu soo kiraysta fanaanin u tuma wax bannaan maaha buu leeyahy kitaabku falaa tasixu lijaaratu calaa zamrin qalabka laftiisii heesaha loo garaacayena in la kireeyo iyo in la kiraystaa toona ma banaana waayo shay manfacadiisu ay xaaraantay